عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العليال نبينا صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي حديث كان والعليال فضلق أوليه يقفك إنه علمك برتو طالب العلم أو نقضه إلهي الدين كيس أو برتو وكد داله أو وقت أو سيه. نبي صلى الله عليه وسلم قفك جد قاضي مودة قاضه ودداس أو كدونا إنه علم صواب برتو الدين كإلهي أو صواب برتو كدونا إلهي وحو أفضينا يا طالب كاس أما أرضيكاس وحا الله فضينا يا جدك الجنة يا الله فضينا يا إلهي وحو أسهل يا جدك الجنة يا أسهل يا ما دام قلبي سيكجرتو إلهي الدين كيس برأ كل قن dadkana gaarsii oo wax kale uusan ka doonayn ama jaga uusan ka doonayn ama duun uusan ku raadsanayn ilaahay dartiis uu baranay qofkaas haduu wado uu qaado cilmigaas uu doonay ilaahay wuxuu u fududeynayaa jidka jannada ee loo fududeynayaa waa qiimeyn iyo sharaf aad u qiimo badan way. nabiga sidoo kale wuxuu tilmaamay qofkii ilaahay khayr uu la doono iyo wanaag uu la doono inuu diinkan uu fahansiinayo cilmigan shariicada cilmigan diinka ilaahay soo dejiyay in qalbigiisa la gelinayo qofkaasi oo diinka la baray. نبي وحير صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قفك إلهي خير لدوني وناق لدوني إلهي وحو فهنسيا دين كان يو فهنسيا فقيه يو كدقا تفسير كان لفهنسيا صنود النمحة دايا لفهنسيا قف وحالة دقا عالم إلهي الدين كي سيقان قفك إلهي خير لدوني صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي كتاب كان إلهي سود جي الدين كان إلهي سود جي إلهي قولنا كرأي وقاضى شرف ويويلا kor ayuu ugu qaadaa oo sharaf iyo qiimo ayuu u yeelaa qoran ilaahay wuxuu u geeyaa hoos ayuu geeyaa waa kuwa sharafta loo yeelayo kor loo qaaday waa kuwa ilaahay diinkiisa barto ilaahay diinkiisa qiimeeyo sababtoo ah marka ilaahay diinkiisa ay baranayaan waxay raadinayaan ilaahay inay ku caabudaan ilaahay inay ku raali geliyaan maadaama ay raadinayaan ilaahay wuxuu siinayaa sharaf iyo qiimo ayuu siinayaa qoran wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam hoos ayaa la geenayaa waa kuwa kitaabka ilaahay ka jeesaday aan baran aan qiimeyn waqtina aan siin ama ay yasam inay diinka ilaahay inay bartaan ay u maleeyaan diinka in la barto ama talibul ilmi in la noqdo ay u maleeyaan inay tahay dib u dhac inay tahay ilaahay diinkiisa in la barto waqti lagu bixiyana fadli aad wanaag badan ayaa laga helaa mid kood waxay tahay ilaahay wuxuu kugu fududeynayaa wadada jannada aad ku aadi lahayd jannada wadada ay lagu fududeyna mid kood mid labaadna waxay tahay ilaahay wuxuu kula doonay khayr badan ayuu kula doonay maadaama aad tahay talibul ilmi ilaahay diinkiisa in aad baranayso midda saddexaadna waxay tahay mar walba ilaahay diinkiisa aad qiimeynayso aad baranayso waa mar walba ilaahay qiimaha iyo qadarka kor u qaaday oo sharaf uu ku yeelay way adduunka inta joogtid marka waxa la doonayaa qof walba muslim ah ilaahay diinkiisa inuu barto waqti uu ku bixiyo haba yaraaday hatta wax yar inuu ka qaatay cilmigan wuxuu ku helayaa sharaf aad u qiimo badan ayuu ku helayaa intuu asaga iskaga tagay lahaa haba yaraaday hatta waqti yar Allah ka dhigay inuu geliyo waqtigiisa إلهي دينكيسي إنه برته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.